aad baan islaamiyaa suunka ku jirta dhammaantiin aad baan islaamiyaa walaalayaal soo dhowaada haddaa codkayga maqlaysaan shaashadana si fiican u aragtaan walaalayaal insha allah tu chatkaygu soo qora waxaan filayaa inaad u jeedaan maasha allah walaalo badan baa soo qoray tu aad baa u mahadsantihiin insha allah caawa waxaan ku bilaabaynaa lacagtii wigi dhawaato aan falaqaynay last week lacagta aan falaqaynay ee AUDJPY last week aan falaqayntii meeshay ku dambeysay iyo asbuucan waxaan ka rajeynaynaa insha allah fiirin doonaa lacagtan aad u jeedaan waa AUDJPY last week markaan falaqaynayna Agambi kala joogtay oo waxaan ka rajeynaynaa inay meeshan double tabka inay tagto oo kadibna soo aado marka asbuuci dhaweyta marka aan lees gareynayno waxyaalaha goboltaba iyo inaan aragno inay baatan noo samaysanayso 1 2 3 ay halkan noogu samaynayso intaas waxa ay confirmationadii last week aan ku analyze gareynaynay lacagtaasna qaabkii uun bay samaysay meeshii bay tagtay kadibna seel fiican bay soo aaday marka waxaan rabnaa inaan sii fiirino weegan maxaa kaloo kasii rajeyn karnaa lacagtan maadaama ay dhaqaaq ee soo samaysay intay shuruudihii soo waafaqday ee soo kala wareegtay dhaqaaq koowaad bay hadda samaysay marka weegan waxaan rajeynaynaa halkan corruption bay ku jirtaa corruption baa suganaa insha allah weegan kadibna waxaan ka rajeynaynaa dhaqaaqii ee soo samaysay hore usoo samaysay mid leeg baan kasii rajeynaynaa inay hoos socoto oo seel sii aado ilaa ay soo dhamaysanayso baatanka marka hadda mar walba marka waxaan sugaynaa corruption dura wuxuu noqon karaa corruption dheer cabaa kor u socda oo saano kala intuu iska noqdo marka soo dhici karaa marka corruption kan iyo habka u samaysmo uma fiirina weegan haduu ilaahay marka qaabka loo geli karo horta mar walba hadii laasi buul baa soo jeeso meeshii lacag ka laabatay marka mar walba ay soo jeeso halka fursad baa ka banaan fursad fiican baa ka banaan marka lacagtaasna qaab noocaas insha Allah ka sugeynaa haduu ilaahay idmo oo lacagtaas seel baa ka sugeynaa okay marka ilaa iyo waxaan sugeynaa meeshan targetka baatanka sugeynaa ilaa iyo targetka baatanka haddii baatanka soo jeesana ilaa iyo halkan baa sii sugeynaa insha Allah meesha la tirkeeda laakiin targetka koowaad waa ilaa iyo inay ka soo gaarayso meesha baatankan ka dhamaysanayso nitrulkaas kadibna waa arkaynaa qaabka ku timaado iyo kandalada yimaada waa arkaynaa haddii kale ilaa iyo halkaas ka sifaysanaa haduu ilaahay lacagtan hadday ay fahanteen asbuuc hore falaqaynta aan sameynay iyo caawa insha Allah 3 insha Allah ayuu soo qora saan iskula soconno lacag kale insha Allah ku socon haduu ilaahay waxaan sheegaysaa doontaan lacagta waxay AUDJPY haddana waxaan rabnaa inaan gudo galno aan fiirino NCDJPY lacagtan aad aragtaan screenka iyaduna waa NCDJPY last week dhaqaaq bay soo samaysay dhaqaaq oo waxay soo samaysay oo sell dhaqaaqa mar walba waxaa jirta qaacida hadduu suuq dhaqaaq sameeyo waxa laga shugaa correction baa la sugaa markaasna waxa filsa in dhaqaaq ku xigo lacagtan laftirkeeda fursad waxa ku jirta dhaqaaq sababtoo suuqu mar walba uu correction ku jiro hadaa iska arti suuq la laabanaya macnaheedu waxa weeye inuu dhaqaaq soo dhow yahay corruptionka qaabku raba hoos samayso iyo meeshu raba ka dhaco laakiin muhiimaddu waxa weeye inaad sugaysid dhaqaaq mar walba aad suuq kandalo waaweyn haddii ay dhexda kasoo gashido kale mar walba dhaqaaq aragtid waxaa rajeynaysaa suuqaas soo laabasha ka rajeynaysaa ama correction inuu ku galo meeshaas lacagtan marka NCDJPY iyada laftirkeeda waxay soo samaysay dhaqaaq bay soo samaysay dhaqaaqaas ay soo samaysay hadda waxay ku jirtaa correction kana sugeynaa qaabka u samaysmo iyo habka uga baxdo hadday correctionka ka soo baxdo oo qaab hadda correctionka waxaa kor inuu samaysmayo dad qalinkaada soo qaado inuu tuso qaab inuu kor u samaysmo marka waa sugeynaa wax yar saas kul sii socon karaa muhiimadda aad markaa heshid kandalo noo sheegayo seel inaad ka faa'iidaysatid ama waxaad samayn kartaa inaad sugtid ilaa uu kasoo jebinayo lasti bullbaga lacagaha inta badan markay jebiyaan meesha ay kasoo laabteen lasti bullbaga jebiyaan waa sii dhaqaaqa lacagtaasna fursad noocaas ayaa ku jirta
weliba haddaa hore usii socotid time frameda yaryar haddaan sii tagno saan usii aragno lacagtan qaabkeeda. hadda halkaan oo kale correctionkan oo kale wax yar ka dhex fiirinaynaa fursada qaabku correction noqon karo. haddaan tirtiro okay. marka hadda correctionkan oo kale waxaa jirta hadda halkaan oo kale waxaa ka aragtaa inuu meeshaan laftirkeeda inay tahay meel uu hal mar hore ka laabtay oo halka haddana ku socda. marka uu correction sameynayo qaabkan oo kale kan halkaas correction sameynayo kadibna soo dhacayo. hadda waa 15 minutes. marka mar walba chance ba insha Allah taasna ka baarisan lacagtaas oo sell ah hadduu ilaahay idmo fursadaasana ku jirta. marka lacagtan hadda ila fahanteen walaalayaal 44 iyadan ii soo qor. ما شاء الله هرجيني إذا أنا فهمتين فور بدن باردو صغرين ما شاء الله أدوا ما سنتين ولا ريال waxaan fiirinaynaa lacagta noogu sii xigta iyadana insha Allah ku sii soconayna waxa weeye fursada ka fiirin doono JBP CHF lacagtan JBP CHF aan fiirinaynaa insha Allah waxaan tegaynaa waxa la yiraahdo 4 hour kan tegaynaa 4 hour ka markaad oo lacagtan aad fiirisid lacagta hadda right now waxay sameynaysaa baata bay ku jirtaa right now. horta marka hore dhinacan kore haddaad fiirisid meeshaan kore oo suuqu marka hore dhaqaaqu ku tegay kadibna waa laga soo laabtay. hadda markaad fiirisid meeshii bay hadda ku socotaa qaab correction. marka lacagtan la waxay sameyn kartaa lacagtan laftirkeeda sell baan ka sugeynaa laakiin qaabka ugu sugeyno sellka inay lacagtan meesha inta saa u socoto double tabkaas tagto ama markaas confirmation candlestick markaan ka helno kadib aan sell u soo raacno ilaa halkaas qaabkaas way sameyn kartaa. waxa kaloo dhici karta meeshaas inaysan gaarin meelahan intay igu sawiran yahay trend line-ka inay ku laalaabato trend line-ka dhexdiisa kadibna ay soo jabsato. hadda iyadana suuqaadkaas معنا خالد عدك يا كاحر سافلي hadda ma la maqnaa macna hadda ma la maqnaa ما شاء الله marka sorry codka iga yar xirmaday. marka hadda lacagtan JBP CHF iyada marka maadaalkan correction ku dhex jirto waxaan sugaynaa correction intay ka soo dhaxbayso baatankan oo banaanka u soo baxayso kadibna correction yar nasiinayso qaabkaasna waa u raacinaa waa fursadaas. haddii intaas sameyn asbuucan kor u sii socotana meesha labaad aan ka sugayna waa inay double tabka timaadaa. double tabka insha Allah marka timaado aan kandaladii ahaa rejectionka ama kandaladii noo sheegay reversalka aan ka helno mar walbaba double tab walba yani sax ma aha oo wuxuu u baahan yahay confirmation inaad ku dartid. confirmationka ugu muhiimsan waa candlestick iyo qaabka ay ku timaaday lugtaas inay qaab correction inay ku timaaday. marka haddaan sii tagno 1 hour ko kale oo aan ka sii fiirino iyadana qaabka lacagta correctionka maadaama correction fiican yahay oo dheer weliba big badan yahay daa cabirtid. haddaan soo durkino wax yar fiican ugu dhow fiican ugu aragno marka iyadana waa lacagtan qaabkaas insha Allah ka sugana JBP CHF sell ka sugana. lacagtan hadday ila fahanteen iyadana insha Allah 55 ii soo qora ma codkeygana iyo haddaan maqlaysaan insha Allah 55 ii soo qora. waxaan rajeynayaa in lay maqlo ma sha Allah hadday soo qoraysa 55 waan ku soconaynaa hadduu ilaahay idmo. lacagtan ugu xigta waa USD Canadian lacagta maca last week baa falanqeyn USD Canadian USD Canadian baa iyadana fiirinaynaa. lacagtan USD Canadian hadda waxaan joognaa one day-ga horta one day-ga waxyaalo ku fiican yahay waxa marka double tab iyo waxyaalo aad raadinaysid yani one day-ga aad u arkaysa meelaha double tabka meelaha reversalka
waxyaalaha aadka loogu xaqiijiyo waa double tap waxa ka wada waa one day marka hadda lacagtan waxaa aragnaa in meeshan kale ku socoto meeshan halkaa rabta inay aado marka weliba waxyaalaha noo xaqiijinaya waxa weeye inay asbuuci dhigto inay dhaqaaq soo samaysay correction samaysay ee hadda kan weyn ku dhaqaaqday marka lacagtan waxaan rajeynaynaa inay meeshaas tagto oo qaab marka waxa dhigta macquulka ay samayn karto waxa weeye inay wax yar intay meelahan dib u soo laabato ee markaas continuation noo samayso continuation ee lacagtaas dhaqaaqdo waxaan filayaa haddaa codkayga maqlaysaan 3 soo qora waxaan arkaa marka codkayga dil maqlayo walaalayaal 3 insha Allah soo qora waxaan rajeynayaa in la maqlayo marka lacagtan USD Canadian waxaan rajeynaynaa inay meesha kor tagto oo asbuucan iyada waxa ka sugaynaa buy maadaama qaabka aragno waxyaalaha hadda confirmation ku leenahay waxa weeye laba waxyaalood in aan aragno dhaqaaq inay soo samaysay lacagtan dhaqaaqa halka ka soo samaysay correction inuu jiro kadibna kor loo kacayo waliba waxa muhiim ah meesha la tagayo confirmation waxa lagu sii darsadaa meesha meel nooca loo socdaa waliba waxaan filaynaa halkan inay noqon karto meel haddii uu imaado suuq yani fursad naga siin karo oo halkaas double tap noqon karo halkan qaab noocan ee saan kala samaysmi karo inta badan waa shaqada ugu badan ay suuqa samaysmato markuu double tap ku samaysmayo inay qaab ay ku timaado three touch marka iyadana saasaan ka rajeynaynaa haddaan sii soconno 4 hourka iyo waxa aad sii fiirisana waa sii arkaysaa yani qaabka lacagtan waxaan rajeynayaa inaa iyadana fahanteen lacagtaas qaab kasta ku sugeynaa insha Allah time frame ka weyn asbuucan waan arki doonaa waxa uu suuqu mar walba ku furmado iyo waqtigaas la joogo suuqu furan yahay qaabka iyo kadalada iyo waxyaalaha kusii go'aami doontid marka hadda lacagtan fahanteen walaalayaal iyadana ii soo qora ama mar soo qora si aan lacagta ugu dambaysa insha Allah aan u fiirino macluumiin kale ayaan sugaysaan waqtiga ugu faa'iideysano lacagta kale oo iyadana aan fiirin doono aan kusoo gabagabeyn doono insha Allah iyadana waxa weeye euro AUD euro AUD waa iyadana fiirinayna euro AUD fursadan waxay wadataa xogaa riskiga wadataa strong maaha laakiin iyadana waa fursad mar walba suuq waxyaalaha markii la balance gareynayo la fiirinayo waa inuu dhaqaaqaas inuu suuq marka xaaladdu ku jiro inay dhaqaaq tahay iyo inay correction tahay lacagta waxa aragnaa hadda waxa joognaa 4 hourka halkan aragnaa meesha inay dhaqaaq ka soo dhex baxday marka fursad waxa sugaynaa in halkan correction naga siiso aan kadibna tan iyo halkaas aan raacno meeshaas kore chance kasta sugaynaa marka correction kana arkayna qaab u samaysmo iyadana waxa ka sugaynaa fursadaas beegana ka faa'iideysan marka laba waxba hadda baan ku niraahna beegaas dhaqaaqana soo aragnay mar hadduu dhaqaaq soo dhaco waxaan filaynaa correction inuu dhaco kadibna la sii socdo chance kale oo aan kusii jiheynayna waxa meeshaan inaan aragno meel suuqu mar hore intuu dhaqaaq ku yimaado looga soo celiyay marka maadaama halka muddo badan ku rafanayay kadib meeshii haddii lagu laabto waa fursad mar walba meel dhaqaaq loo soo laabtay oo suuqadana dhaqaaq ku laabto weliba asagoo waqti dheer ka maqnaa rafanayay meelahan dhexe ku wareeg ku laabto waa fursad marka labada waxyaalood waxa ku niraan lacagta inay meesha imaan doonto meesha marka waxaan maamulaya inay meesha imaan doonto adii karna correction ka marka aragno qaabka uu sameysmay hadda laakiin kandalo waaweyn soo daba maraan markaas waa fahmayna inay meesha la tageen laakiin hadda qaab correction aragno markuu suuq biri iyo furmado aan uu sameeyo markaas waxa saadaalin karnaa inuu meeshaas tegayso marka lacagtaasna euro AUD iyadana walaaliya fursad noocaas ka sugeynaa ina lacagaha aan falaqeeyay ina fahanteen insha Allah أنا كيف أيسن دونا فرصات دي نوفق هذا أنا دي بحاول أقول لي ميكروفون كذا كهند ما شاء الله ما شاء الله aad buu mahadsan yahay macallin Khalid Axmed oo runtii caawa inoo falanqeeyay fursado badan oo cajiib ah dhammaanteena aan wada fiirsan doono weekan inoo bilaaban doono caawa dhammaan lacagaha macallinka uu inoo falanqeeyay iyo macallimiintaba inoo falanqeyn doonaan waxaad kala socon doontaan xiisadaha live ee macallimiinta soo geli doonaan 10 subaxnimo berrito laga bilaabo ilaa iyo 4 galabnimo sidoo kalena waxaa lasoo dhigi doonaa marka ay diyaarka yihiin lacagaha qolalkeena active studentska ee lasoo dhigo signaliska aad buu u mahadsan yahay macallin Khalid dhanka chatkan waxaan arkaa macallinka in si fiican loola socdo maasha Allah waxaan markan soo dhaweynaya macallin Cabdicasiis Cusmaan macallin Cabdicasiis soo dhawo
ونوي دكتور ياد بالمعصم هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبايدي السلام يا دمانتي سيويدا معلمين تا ليدرسكا أرضي يا دمان ولا لا هو ذا نقل السعودة أعود كي قواد مغلا سو دوادا عوابيك إني صحيح قادوية عشان قرب مقدونا إن شاء الله تعالى العقيب ويجي هوران فرقيني وهادي واي جولد يورو يو اس دي halkay ku dambeeyeen iyo weega wax laga filayo marka hadda DXY ku horeeyo DXY weegii hore waxay joogtay korkan sare waxaynu ka sugeynaa inay zone kan halkan ku jiro ay lacagtani timaado si aan markaas fursad uga qaadano zone-kii way timiday inama aanaysan markaas wax confirmation ah oo waxaan arkaynaa in zone-keeni markaas la jabiyo oo la dhaafay waxay hadda markaas tagtay zone kale ayay tagtay oo hadda zone bay joogtaa lacagtu markay zone ku timaado waxa lagaga baahan yahay adiga inaad confirmation iskaagii markaas aad ka egatid waxaad tagaynaa 4 hour waxaan arkaynaa markaa haddaan daily horta kaga soo bilowno markaa waxaan arkaynaa in suuqani uu uptrend ku socdo guud ahaan muhiimadda fursadda buyga aan u raadinayno inaynu ogaano weeyaan kule ardaydu aad bay u fahansan yihiin waxaan arkaynaa markaas lacagtani horta inay uptrend ku socoto haddana waxaas oo dhan idinka waan hal mar oo kale tira la idin saaro waxaan arkaynaa inay lacagtan uptrend ay tahay marka waxaan arkaynaa suuq marka inuu ina siinayay higher luyo sida halka idinka muuqata luganu suuqu ka kac higher isu tagay higher loogu yimiday higher high wina sii waxaan arkaynaa markaa suuqani horta inuu markii horeba muhiimadiisu ay ahayd inuu uptrend u socdo oo muhiimadda number 1 waxa weeyaan suuqa inaad soo ogaatid jihadiisa guud kadib markaas fursad ka raad hadda markaa waxaynu arkaynaa in lacagta DXY ay uptrendkeeda ku sii socoto oo hadda suuqina siinayo higher high weegi dhaweetay intaas waynu sharaxnay weegan maxaa laga sugayaa DXY markaas hadda 4 hour markaynu joogno waxaan arkaynaa inay zone joogto zone-kiina inuu suuqu soo gaarnaan aragnaa sidoo kale laga reject garayna waan aragnaa hadda waxaynu sugaynaa markaas laba mid oo ka sugaynaa DXY fursadda inay harta halkan naga siiso ayaynu ka sugaynaa halka ay hadda joogto halkaas inay naga siiso fursadda ka sugaynaa markaan 1 hour u tagna markaa maadaama hadda zone-kani uu suuqu soo gaaray waxaynu sugaynaa markaas in hal mar ay QM level-ka inoogu soo laabato si fursadda buyga markaas ay u kacdo QM level-kan hal mar soo gaadho kadib fursadda buyga halka ay naga siiso ayaynu ka sugaynaa lacagta DXY waa midda koowaad midda labaad waxa macquula markaas in uu dhaqaaqani uu range sameeyo maadaama dhaqaaqii koowaad ee suuqu celiyay oo halkan secondary test oo suuqu hadda ka sameeyo kadib saas uu ku sameeyo markaas upturs uu ku sameeyo secondary test in phase B halka naga siiyo hal mar oo kale la celiyo kadib spring uu soo dhaco isagoo zone-ka jibinayn kadib lagu soo noqdo range-keena oo hal mar oo kale ina loo retest garayo saasna inay fursad inagu siiso macquul inay labadaba sameyn weydo oo sii dhaaftana waa macquul laakiin waxaynu u badinayaa in hadda ay soo gaadho zone-ka markay soo gaadho waliba waxaan u jeedaa zone waa ku jira sidoo kale QM level-na weeyaan waa arkaynaa inuu suuqina siiyay QM level-ku ay dhamaystiranto ina siisay higher high sidoo kale halkan uga jeedno suuq halka naga siiyay lower low markaas oo QM level-ku ay dhamaystiran tahay under the over-diiba markaa waa dhamaystiran hadda markaa waxaan ka sugaynaa suuq inuu soo gaadho QM level-ka kadibna fursadda buyga ay halkaas ay ka bixiso ayayna ka sugaynaa maadaama uu dhaqaaqan hadda halkan suuqu ka sameeyay dhaqaaq ka horeeyo dheeri jiray uma maayo inay range galayso laakiin hadda waxaanu haysanaa shuruud inoo sheegaysa inuu trendinga yar ee zone-keena yimiday uu dhammaaday sidoo kale QM level aan haysano QM level tan waxaa laga helaa marka uu suuqu reversal sameeyo sidoo kale zone waan haysanaa fursadda buyga markaas halkaas aynu ka sugaynaa insha Allah markay pullback taas oo sameysana lacagaha kale aynu kaga faa'iideysanaa insha Allah haddii DXY fahanteen 44 markaas si aan lacagaha kale ugu sii gudbo واي هذا ما سنتي واي وانا اركا هروسي سocdo marka aan euro USD tagno euro USD weegi hore iyadana waynu kormarnay euro USD weegi hore waan kormarnay waliba hal meelahan inay joogtaan rajeynaya waxaan ka sugaynay zone-ka euro USD iyada lafteeda zone-ka way soo gaadhay wax rejection ayna ma aanaysin
sidoo kale zoonka kale soo gaadhay waxaan arkaynaa in zoonkii la jabiyey wax aba inama aanaysan zoonkan kale waxa lagu jabiyey dhaqaaq weyn baa ka dhacay hadda suuqu zoonkaasaa soo reject garaya marka still waxaan arkaynaa fursada down trainka in aanay weli fursadii down trainka ahayd aanay dhammaan baan weli arkaynaa okay euro USD marka weekgan maxaynu ka sugaynaa aan daily-yada na tagno aan daily tagno daily markaan joogno maxaynu ka arkaynaa muhiimada daily-ga aan tagno waxa weeye trendiga guud ee weyn inaan soo ogaano trendiga guud ee weyn halka DXY ay up trend weyn inaga siinaysay euro USD in muddo waxaan arkaynaa inay down trend ku socoto way haddana suuqu maxay samaystay view lower low inuu suuqu haddana samaystay baan arkaynaa marka sidoo kale bullback ta laba bullback marna sidan ay nagu siinaysaa waa waxa soo sababay dhaqaaqaas bullback waxaan arkaynaa marmarka qaar uu trend yahay ama correction yahay laakiin hadda waa impulsive laakiin impulsive kan baa marka lower time frame loo dogo maxay noqonayaan isaga laftiisa correction noqonaya oo impulsive oo noqonaya bullback oo haddana impulsive sameynaya sidoo kale trendina noqonaya aynu tagna markaas 4 hour marka aan degno waxaan arkaynaa ama aynu u degno waxaan arkaynaa in suuqu hadda zone joog ayaynu arkaynaa oo suuqu halkan inaga siinayo zone inaga siinayo lagana soo reject gareeyay lacagtuna ay zone-kii ku noqotay 1 hour aan sii tagna markaas si waadix hadda waxa idiin muuqda marka waxa weeye halkan suuqu wuxuu inaga siiyay horta trendy break buu inaga siiyay waa arkaynaa in trendigan la jabiyay lambar 2 waxaan arkaynaa hadda inay calaamadaysan tahay aniga halka ku yimi levelka inoo ah oo ka soo horjeedkaygu waxay noqonaysaa halkan suuqu wuxuu inaga siinayaa higher high sidoo kale halkan lower low inaga siinayaa kaasoo inoo caddaynaya in suuqu uu reversal yahay guud ahaan suuquna down trend buu ahaa haddana waxaan arkaynaa in trendigeedaa socday la dhameeyey oo ku yimi level aan helnay kaasoo iyadoona inoo caddaynaysa in suuqu uu rejected ay suuqa la soo celiyey oo zoonka laga soo celiyey sidoo kale trendy breakna uu ina siiyey aynu rabno in ku yimi levelka lagu noqdo oo high-ga koobaad ah in lagu noqdo sugayna si aan fursad uga soo qaadano marka halka ku siman haddii aan iyadana sii eegano inkastoo aan hoos u sii degnay halka ku siman iyada wax way laga marka laakiin I think 5 minutes waa laga arkay MBL-ku waxa u dhow yahay halkan exactly waa u dhow yahay halkan haddaan eegno ma weyne laakiin waa yar yahay 1 minute haddii loo soo degaa si qurux badan loo arkaya waa mini QM ama QM yar oo laga helo tooska QML-ka marka oo ku siman halkan suuq marka la soo jebinayo dhaqaaqa soo jebinayo ayuu ku sameeyay marka MBL waa yar yahay ku laabato haddii korkaas ku laabato oo numberka inoo ah 1.14669 ka faa'iidaysta fursadda SL-keeda aan ku qaadanayna waa 21 bib insha Allah waxaan soo dhigi doonaa insha Allah qolkaan soo dhigi doonaa lacagta markay halkaas gaadho risk management la isticmaalo waayahay euro USD intaas aan kaga baxayaa lacag saddexaad isla kulmaraynay waxa weeye waa GBP USD iyadana daily baan tagaynaa marka daily markaa tagno aynu soo ogaano jihada guud horta maadaama trendigu weyn yahay trendigu waa labo midna waa mid ka socda dailyga waa trendiga weyn midna waa mid ka socda 4 hour oo waxa laga yaabaa bullbacktaas hadda dailyga aan ka arkayno marka 4 hour aad tagtid inay noqoto trendy up trend ah saas marka u socdo marka hadda waxaan arkaynaa anagu aan soo xaqiijinay in suuqani down trend yahay oo suuquna inoo sameynayo lower high kaasoo inoo caddaynayna suuqu clear down trend yahay 4 hour haddaba markaan imaano waxaan arkaynaa in suuqani uu impulsive ah oo waxaan u jeedaa uu xagan ka kacay suuqu uu ka sameynayay bullbacktan kadib dhaqaaqa soo dhacay dhaqaaqii markuu soo dhacay hadda bullback baa dhacay marka bullbacktan hadda rabno inaan fursada ka qaadano marka waa kan iyadan waxaynu ka sugaynaa maadaama hadda trendy break dhacay laba mid marka lacagtan way noo sameyn kartaa GBP labaan ka sugaynaa midda koowaad waxa weeye in QM levelkan lagu laabtay fursadda aan soo qaadano waa number 1 oo hadda san euro USD ku soo sharaxay midna waxay noqonaysaa markaas in halka range ka dhaco waliba range kana dhaqaaqiisa koowaad waxa inuu dhici karo inoo sheegay waa dhaqaaqa soo dhacay oo halkan suuq uu ka sameeyo halkan meelaha secondary test ka sameeyo kadib uu halkan tago inoo sameeyo uptrend hal mar uu suuqu soo dhaco kadib uu sameeyo spring uu inoo sameeyo kadib la retest garay waa macquul markaas laakiin
inagu mar walba fursadda halkaasaynu ka qaadanaynaa fursadda koowaad ina dhaafi mayso fursadda koowaad TB1 wayna siinaysaa fursadda koowaad TB1 wayna siinaysaa SLK-na waxaan ka dhigaynaa 53 bit baan ka dhigaynaa weliba korkan aad in looga kormarayo malaynayo zoonkaasaan ka saraysiinaa maadaama range uu ka dhici karo laakiin fursaddeena koowaad markay korkaas tagtaba ilaa 30 bit waynu ka qaadaynaa kaas marka risk free markaan ka noqono hadduu suuqu soo laabto range-kii baa markaa samaysmaya waynu sugaynaa range markuu dhamaado fursadda waynu sugaynaa marka kadib baan qaadan doonaa markuu halkaas uu suuqu gaaro iyo xagga ka soo qaadaynaa marka inagu weliba SL yar oo ilaa ay ku qaadan doonaa ilaa iyo 20 bit ku qaadan doonaa marka markuu suuqu halkan hadda soo gaaro fursadda waan ka faa'iideysanaa DX waan bullback bay soo sameynaysaa sidoo kale waxaan arkaynaa euro USD bullback taan ka sugaynay hadda intii oo kale baan GBP USD ka sugaynaa fursadana waan qaadanaynaa TB1 iyo TB2 waan u sameysanaynaa haddii la laabto range-kii baa rumoobay haddii uu suuqu sii socdana fursadda waan haynaa marka GBP USD intaasaan ka sugaynaa insha Allah wixii ka soo cusboonada kulli xiisadeen live-kaynu ku eegi doonaa bari hadduu alla idmo haddaad iyadana fahanteen 44 markaas waxaan isla fiirin doonaa gold marka waaya waxaan ugu dambaysiin doonaa markaas gold weekii hore waan isla kormarnay weekii hore bullback buu ku jiray waxaan arkaynay in aynu ka sugaynay zoonkaas haddaad xiisadda dib u daawataan zoonkan ka sugaynay zoonkan uu ahaa sidoo kale bullbackta waxaynu sugaynay inay korkaas sare gaadho gold intii waa sameeyey hadda waxaynu ka sugaynaa markaas inuu hal mar ilaa iyo korkan uu ku laabto ayaynu sugaynaa inuu ilaa iyo hadda uu korkaas ku laabto ayaynu sugaynaa marka korkaas hadduu ku laabto kale fursadda in laga faa'iideysan karo oo weliba korkaas sare ah waxaad moodaa in uu ku jiro range yar oo kor u socda kan bilowgii range-ka yahay kan automatically waa yahay secondary test oo soo dhacay marka uu suuqu soo sameeyay spring oo hadda waxaan uu dhacay uu yahay outad oo dhaqaaqa u sareeyay ah oo suuqu sameeyay kadib hadda la soo dhacay oo rabnay in korkan lagu laabto marka hadda waxa macquula gold laba wax waa sameyn karaa weliba waxaynu sugaynaa markaas in waxa fiicneed weliba weegan laga hoos maro si ay u cadaato weegan in laga hoos maro sababta weegan haddii aan 1 hour imaano wuxuu noqonayaa bullback wuxuu noqonayaa hadda suuqa halkan wuxuu inooga sameynayaa new higher low kadib new higher high na siinaya new higher low kadib new higher high na siinaya marka as range marka haddii aan u eegno waxaan arkaynaa in range ku dhameystiran yahay haddii korkaas lagu laabto fursadda waa laga qaadan karaa weli waxaan u malaynayaa inuu hal mar ku laabtay markan uu ku soo laabtay oo halkan uu suuqu soo gaaray counter rejection kaas dhacay marka fursadda sarka ka soo bixiyay mar kale inuu ku laabto waan rajaynayaa markaas oo hal mar oo kale inuu korkan ku yimid levelka si fiican ugu laabto counter rejection aan sugno markaas fursadda isagana ka faa'iideystaan gold oo badana marka inuu korkaas ku laabto waxa macquula markaa maadaama weli aan kan la dhamayn waxa fiicneed inuu suuqu hal mar kan jabiyo oo hal mar oo dambe laabto aad bay u qurux badneed laakiin maadaama una saasmayn 30 minutes ku laabano marka maadaama una saasmayn waxaynu ka sugaynaa mid kale aynu ka sugaynaa waa macquula inuu halkan suuqu ku ka soo sameeyay 30 minutes marka la joogo weli 1 hour aan tago hadii la eego exactly 1 hour marka la tago waxaan moodaa inuu suuqu ka sameynayay higher low yar inuu jabiyaad moodaa korkaas ra ku laabto weliba SL-kiisuna aad buu yaraanaya 1813 haddii aad ka qaadatid 1815 waad dhigan kartaa markaa SL-ka korkaas ra ku laabto DX waa in hadda waxaan ka sugaynaa in waxoogaa inay soo dhacday isaguna waa laga yaabaa in waxoogaa korkaas ra aado inagoo kana sugaynay retest sidoo kale aynu ka sugaynay range-kuna waa inoo dhameystiran yahay waxaynu ka sugaynaa markaas inuu korkaas ra ku laabto kadib markaa fursadda SL-ka uu soo bixiyo SL-kiisuna waa yar yahay marka wixii kulli soo cusboonaada maalinka insha Allah idin kormari doona haddii aad fahanteen 44 aad baan idin salaamayaa wixii lacagaha ka soo cusboonaadaan insha Allah kulli bari waan kormaraynaa wixii diyaar noqon qolkan soo dhigay insha Allah taala aad baan idin salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh back to you Dr. وعليكم السلام ما شاء الله aad buu mahadsan yahay macallin Cabdicasiis Cusmaan lacagaha uu noo falanqeeyay macallinka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan dhamaantii ka wada faa'iideysano marka ay diyaar ka yihiin macallinka waxa uu soo dhigi doonaa qolalkeena active studentska sidoo kalena xiisadaha live macallimiintu soo galaan ayay macallimiintu dhammaan ku wada bixin doonaan lacagaha caawa iyo fursadihii kale oo suuqa ay ka helaan laga bilaabo 10 subaxnimo
ilaa iyo 4 galabnimo maasha Allah macallin Cabdicasiis dhanka chatka si fiican baa loola socday waana rajaynaynaa dhammaanteen inaan ka wada faa'iidaysano waxaan markan soo dhaweynayaa our CEO Engineer Maxamed Jaamac CEO Engineer Maxamed soo dhawow ودوه دكتور هند أدي أد بعد سنتهاي مركل وسلام دمان ليدرسكا يو معلمين تا يو أرضي دا يو أصحابتا نين كا هابين وانا سنة عدك يا ديسي في على مغلوون إن شاء الله قيبت شاطة ما شاء الله همبلي أيان لي هاي معلمين تا عاوا فلانقين تا كل راح يسنسي قيمها التكنيكال كا كوبا شالي ما شاء الله همبليو كل رجلية بليس أم بليس عن فيليا التكنيكال كي عاو وحبا كما يسنترين حسدوا فلانقين iyo waxbarasho ay labadaba ay isugu jirtay waqtiga oo iska gabagaba dartii wax yar uma ku dari doona insha Allah bal qaybta fundamentalka ayaynu yar eegi doonaa wax badan oo hadda saameyn badan oo hadda weekend jira ma jiraan isniinta chatkiga si maxaa ka jira isniinta isniin maxaa jira isniinta suuqa maxaa ka jira chatkigu si إبراهيم عبد القادر ما شاء الله همبلي إيدها بليس أم بليس وحبا إسنين تماهينه هاي مالك كل حاجة ثلاثة سوق محاكي ترى يعني وحس ورسامين له ثلاثة أنا ماهينه ثلاثة وحسامين له ماهينه يس سنين ثلاثة لا مع الموت نيس وين أصاب حياة ونقولنا هي مشرو بنجيه فسح كتران ومشران وهي أربعة محاجرة شاتك أربعة يوسقر مع الموسيقى خلدمين هذا ثاوي تسكرين كم حار 4 ما شاء الله حبي عبد الله ما شاء الله همبلي الله صغر حبي عبد الله هذا كان دولار كايا وحكي ترى ورسامين لو كترى واللي وهالك وركليه ويا أو قرشها قاعد تقدر سلسلة ساعات وحن في الأسداد في دمينة تاي سوماليا تاي وهي مع لماذا كل حكاية أنا بعناها هاي خميس محجرة شاتك يقصي قعدنا فوده شاتك قعدنا فوده USD GBP وحاوصور قرر مركن حسن محمد شاتك وصور همبلي ده حسن همبلي ده USD ورسامين لك كتيرة مركل ورسامين لك كتيرة واسكو ساعد وأفرت مركل ساعدة صوماليا تيم جيسك أفريقيا GBP ayaa yana war ka jira 12 inkastoo xilligan aalaaba inagu trade gareyn way yahay jimcaha maxaa jira suuqa maxaa ka jira jimcaha suuqa maxaa ka jira ma sha Allah Ibrahim Abdi Qadir wuxuu soo qoray maxay AUD-da waxa ka jira maxay new saameyn la ayaa jimcaha ka jira sidoo kale lacagta loo yaro Japan-ta ayaa waxa ku jirta bank holidays مالك جماعة فسح قلت إن شاء الله جودنا برد أرض سوق قرطون عادي دوم هسيهين حفلة أنت سنة قرن سنة 10 دقائق صبرتين واسكي كريسان حلي هذا سوق عاد جلسان سوق واحد كتير سامين كريا سوق قرشة قدرت إن شاء الله لبست حساب هذا الرفيشنا ينعاو يجي دون هدي له هدمه سؤال شو قالوا حويه ينعاو سوق هذا نيو وبيزك وحنا كويدين يا ليفل كادو أنت كتيرو ومحي بيب وحوي هاي ربعة وين يشرح لي عاوة بيب أيان ربعين أي شرحين محاد بيب وشرح لي أرض عصب ولا يبلون كشرة والله ورسم وحوي هاي بيب شات كي صغر وام هاي بيب هيا لا مو حسوق قريب ووحى لو حسابيه فرقية ودحية لبدا السحر كو حب حسوق قرتي ووحى لو عبره طلاقة ما فرقية لعقته ودقاقده جالكس أنا وباهنا نقدو سوق قريب سهرة وحسوق قرتي وهالبيق قال لو عبره سوق فوركس سهرة صعب كوتو بليس سهرة صعب كوتو ما شاء الله عمبلي وسوق جواب السحدة روح وي وهالبيق قال لو عبره سوق لو يقارنو فوركس دولده wax kasta waxa lagu cabiraa wax kasta waxa marka halbeega lagu cabiro suuqa forex ka ayaa loo yaqaan maxay bib loo yaqaan intaas aan ku soo koobiyo insha Allah su'aasha labaad aan soo weydiin waxa weeye trendiga imisa ayaa loo qaybiyaa chatka ugu soo qortay ahaan trend imisa loo qaybiyaa
trend imisa loo qaybiyaa ما شاء الله حبي وسوق قرتي سلاد محمد جالكس عبد الرحمن دلحة عبد الله ما شاء الله إبراهيم تريندي بالشات كي سوق ترى سوق قرتي بالهدف ما يعيد سوق وما حي ترند ما يمس الله قبي نوعية الشك ترند سيدي سوى حالي هذا نورمالي واب ترند هذه كر هذه يو داون ترند مكا hoos aadaya labada saameyn loo qaybiyaa rankinga isoo yeelada dhaxay ku wareega way marka uu hadaba up trend aadiyo suuqa mobile baan u geliyaa masal baan u geliyaa mise wax ka gaabsanaya jawaabtaysi markuu up dhaqaaqayo maxaad ku talin lahayd maxaad ku talin trend markuu up yahay trend markuu up yahay uu saac ciyaarta noocaas sameynaya halkaas ka dhaqaaqayo kale mobile baa mise waa sel جوابته الله يسوع قري وباي وحنا أسوأ قرتي حبي عبد الله آدم ما شاء الله حبي الله يسوع قرأ صعب كوتما دي رجله حبي والسماء دي رجلنا حبي والسماء ويا سوق مركو يهاي رانجين ماركت ما باي بنقول يا مسلسل ثانك يو ليدر محمد نقول ثانك يو سوق مركو يهاي رانجين ماركت ما باي أنا قلي يا مسلسل نورمالي وحين يربحي كجبا حالة داس كجبا هذا بروفيشنال تاي إن يروت كقرابان كريسها لكن سيدا جود وحاول قاعدة نحاول كجبا سوق دوك تشرو رانجين ماركت أو حاول هوري ديفيديد وياي هورينا أوصعون هوسنا أوصعون كجبا أينير لكن حاجة الحكمة هذا محمد سوق رأي اللي محمد نوجه ترند جوا صاحب كم حلو كذا أنا سوق مركو كر آذيانا ومركو معايا هاي باي لو آذو سوق مركو هوسو آذيانا ومركو معايا هاي اللو آذو محي لو قلا محي محل لو قلا سل أيا لو قلا ووحياها بيسيقا ويان وبيسيقا ويا pending order كم مثال لو قبيا pending order كم مثال لو قبيا ما شاء الله حبي عبد الله don't fight the market الله دقالة بالسوقة وراهي كل حبرني عشرة بيزي قبل كل برني طيال كسوق يسكده وياهي وأفر ما شاء الله هبلها هذا بين إن أوردر إسكو أفر وياه يا إيش سوقر كذا يحسسته بيزي يحسسته يا إيش سوقر يبين أفرتي أو كركاية بسوال السيداي أو حويه وحلوج شرا اللي يدوي في سيو مارك ستراكشر لين محمد نوجي ما شاء الله عاو وكتب عسلية باي ستوب سيل ستوب حب باي ستوب باي ليميت سيل ستوب سيل ليميت محمد صغر ما شاء الله حبي اي سكر راسي يا محمد نوجي لبدا وحنبلي ما شاء الله ده لين محمد نوجي عاو وكتب عسلية سمية نو جيدا على النور نوماي افكس ضمان ارضيده وافق حويان ويا سؤالها قدام بين سو قادن حويان تيبس اوف اناليسيس واي مسا وصدح ويان نوعية سوق الله فلان قياي وصدح ما شاء الله وصدح كيباد نمبر 1 كتر له نمبر 1 ما شاء الله حبي عبد الله أبوه الرئيس حقنا تكنيكال كايا وحوياي آلابا سجود إنه إحنا مسنا تكنيكال بنو ياي نمبر 1 توجا كمان سوق شنا سمية يا توجي سوقرتي ما شاء الله الحمد لله وفندمنتال كا وأهمية يا واحد دنيا كتيرة إن هذا الشيء كويس تضيو بدل الدنيا تشجعي وحيحوك ساران فندمنتال كا قاركو تكنيكال كا وحاسبوا أنا أحسن قف مركو الله بدأ إسكت درسون جودان أنت سؤالها كسوكوبيا بيشن ترتن كيواتشرا هبيك ترتن كيا إيش ريا وجورما وأرض حسوسين كريا ترتن كأرض إيز وين لين ترتن يتعلم يا على المرة تلسينا يوم حب وحي سوقت 4 أرضك 3 هبيك 3 واي هاي سيارة سوق كوبه عاوة وفلانين تسوقه ما أنت أحد بين نجنوتها سما عاوة أحد أكتر سننا هبين دمبه وبندقة إيزي ويلين أو قفك الصعصب يارضى ليفل كواد يعاد حسين يا بندقة هبين ككحية ويان ترتنك أرضيدا وثلاثة 4 سوق جلس إن شاء الله أرضيدا عصبة نقص بير سنة جينا حلنا هاي وحل حرك رسال ليدر كأو معلك يزوم كوسو مع سمي
haddaad youtube-ka naga daawanaysid insha allah telefoonada leaderska mid kamid ah uun la xiriir si aad ardayda uga mid noqotid waxaan kusoo gabagabeynayaa maxaa u dhexeeya waxa hadda aan ka hadlayo iyo IBC jawaabtii ay siinaya farqiga u dhexeeya muxuu yahay IBC iyo waxaan hadda caawa dhan aynu falanqeynaynay thank you xubiyes telka inta keena Sumaya zoom kan miyaad iska soo gashay soo qof linkiga kuma siin ama qol ma soo dhigin ya ardada kale ee telefoonka weydiinaysa qofkaas YouTube-ka haddaad tagto xitaa telefoonna aan leenahay ku qoran qaybta description ama qofkii ku siiyey insha Allah la xiriir ha qofkii ku siiyey linkiga iskama soo gal insha Allah ila akhir linkiga qofkii ku siiyey la xiriir hadduu Telegram ha hadduu YouTube ha hadduu ahaa meesha ka soo insha Allah raac Ibrahim Ali yes iyo Hubbi mid waxa weeyaan labadaba horta waa suuqii forex mid waxa weeye adiga ayaa baranaya oo shaqaysanaya oo gacantaada ayaad maalaysaa midna waxa weeye robot ayaa ku shaqaynaya oo adigu waxa wax shaqo qaban maysid oo ciyaarta korbaad ka daawanaysaa labadaas kaliya marka wana saaw kala saartaa labadaba waa suuqa adduunka ugu weyn ee loo yaqaan forex keeba fiican marka weeye jawaabtiisa keeba fiican maxaad ku talinahay بس واحد أقول له لبضه واسكت الصنايع حبي فوركس لبضه وفوركس لما يحيرنا برتو لأن محمد ما يحيرنا أنا تشيفه باشا اسكن قرطو واي بي سي وحسين يا على هذا محير علمي في عن جالكس اي بي سي سمية إنا برتو حاج عبد الله كان هذوك شغال سنة سو لا مو محير سكوقات ككون أحسن اي بي سي يا قون gacantaada ku cilbax ma sha Allah guuleysta aniguna waxaan ku talin lahaa labadaba inta labadaba ayaan raaci lahaa labadaba waxa best si ah inaad gacantaada maashid ayaa number 1 gacantaada inaad maashid baa number 1 oo wax baratid oo skill ku noqdo laakiin maanta chance IBC aan haysano intuu jiraya garan mayno qofku waxa rabaa in labadaba skills IB ga ka faa'iiso u shaqeeyo kana isagu intuu barto ka shaqeysto intaas aan ku soo koobaya balankeena wax barto shaqeysta waarmaysi warka haro back to you Dr. Hanad